wasiirka howlaha guud Cali Mareexaan ayaa ka hadlay khilaafka golaha deegaanka degmada Burco oo lug ku lahaa sida ay sheegeen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco isagoo weji kale u sameeyay cidii abuurtay khilaafka golaha deegaanka degmada Burco kuna sheegay inay ka dambeeyeen xisbiga wadani waxaana hadaladiisii ka mid ahaa sida tan kulli shalayto waxa aniga eedeynayay xisbiga wadani madaxdooda sarsare oo igu eedeynayay in khilaafka halka ka jira horta anigu waa yar qarinayay khilaafkan wuxuudiisa xisbiga wadani baa dabada ka waday magaalada 7 cishan joogay aniga oo rag badan oo halkan ka hadlay oo reer Burca jawaabtooda iska dhawraya ayuunba wuxuu yiri hadba aniga oo sooman bay islaxanta ayuunba shaqii dabada ka waday oo shalay TV-ga yimaadeen oo ilaahdeen waliba waxay hadleen markii heshiisku gabagaboobay marka waxaan leeyahay hawshii Burca way dhamaatay waxa tartan madaxweyne iyo ayaynu ku ogeyn xisbiga wadaniga waxa ridista maayarka Burco iyo wadani isa suray iyada umada ka jawaabi doonto ee culayska inta laga ay u saarayaan waxaan leeyahay Burco waanu midaynay golaheedii deegaanka waanu midaynay hawsheedii oo dhan waa dhamaystirnay waxaanu ku balanaynay inay wada shaqeeyaan cidii fidna ka wada halka ku joojiso waxaanu ku balansin inay si midaysan uga wada shaqeeyaan macaaradnimadana kulli de xisbigu inuu shaxguuro ma aha oo golaha deegaanka iyo maayarada kanaan ridaya kana soo saaraya ku wareegay waxa looga baahan yahay ufuk ka sareeya taana intaasan ka odhanaya reer Burcana waxaan leeyahay si midaysan wada shaqeeya golahiina deegaanka iyo waxgaradkiina iyo maamulkiina waxaan kaloo hawshan xoog isaga xoog saaray aan mahadnaqayaa gudida nabadgelyada oo ugu horeeyay barasaabku gobolku oo aan ka daalin intii hawshaas taagneedba aad iyo aad u mahadsantii isku soo wada duubo khilaafkani ka aloosnaa golaha deegaanka degmada Burco ayaa loo aaneynayay inuu lug ku lahaa wasiir Cali Mareexaan